xadhig iyo jirdil loo geystay Cabdiraxmaan Axmed Cabdi Aadan oo ahaa xubin beesha dhulbahanta u matalaysay waaxda maaliyadda ee gobolka Danood ayaa maanta si rasmi ah shaqo sharci darro ah loogu xidhay degmadaasi. qaar ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka ku sugan degmada Heegale ee satarkaasi ayaa waxa ay sheegeen in ilaa haatan uu ku xidhan yahay Cabdiraxmaan shaqo sharci darro ah. waxaana halkaa ka hadlay qaar ka mid ah odayaashii waxgaradka ku sugan satarkaasi Heegale isla markaana sheegay in si degdeg ah ninkaasi loo soo daayo. odayaashii waxgaradkan ayaa mudaharado kala duwan ka dhigayay deegaanada santarada ah ay ka mid yihiin Heegale, Qarharo iyo sidoo kale deegaano badan oo ka mid ah deegaanada ay deegaan Soomaalida. odayaashii waxgaradka oo maanta warbaahinta si rasmi ah ula hadlay waxaana hadladoodii ka mid ahaa saacadu imika waa labada duhurnimo kelifka dadka shacabka soo saaray baan halkan kala warbixinaya. waxa weeye dadka shacabka waxaa soo saaray war degdeg kala yimi hadeer Danood oo si fawaaxisha u dhacay oo jirdila. waxa weeye halkaa oo jirdila oo hadalka jirdilkaas oo loo haysto sababtiisa in badan la maleegiyay oo ay maleegeen ninka la yidhaaha Cumar Fayruuq, Axmed Dayib iyo Ila Sheekh Biixi oo si dabana celcelisoo degmadii kala bixi weyday in badan gacantoodu hayay. dadka shacabka waa dadkii qaatay qoondadii lagu qaybiyay degmada santarkan waa santarka Heegale ee bariga Danood. waa dadkii qaatay wax qaybtii ka dhacday degmada Danood oo looga hari waaday xafiisyada ay heleen looga hari waaday oo dagaalkii ka hari waaday oo ay yara muujinaya